بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق عبد المالك محمد أسكر indhaweyd baa dukaamada ku yaala gobolka Minnesota ayaa waxa ka dhex muuqday dukaamo markaasi ay leeyihiin dadka iyagu foreign-ka ama markaasi soo degay indhaweyd gobolkan Minnesota dukaamadaasi ayaa waxa dad badan ay isku raaceen inuu markaasi uu horkacayo ama hormud uu yahay suuqa la magac baxay Holyland ayaa markii hore waxa uu ahaa dukaan yar ka bacdina uu noqday dukaan weyn ka bacdina heer uu gaaray in markaasi laba loo kala qaybiyo midna laga furo North East-ga midna markaasi laga furo South-ka magaalada Minneapolis meesha iska gooyaan Lake Chicago xarunta weyn ee bilowga cusub ee hadda la furay haddaba Holyland waxyaalaha uu ku caan baxay ma ahayn inuu markaasi qalab cusub ee waxa weeye habka cunnada ay u kariyaan iyo habka ay u soo dhaweeyaan dadka markaasi macaamiishooda ah mar aan Holyland booqanay oo aan dhowr sawir iyo video halkaasi aanu ka soo qaadnay ayaa waxaanu ka dhex muuqday shaqaalo markaasi ku hadlay afka Soomaaliga dukaankaasi waxa aad moodaa inay ka shaqeeyaan runtii markaad eegto ajnabiye kala duwan oo ku hadlaya luqado kala duwan taasi waxa markaasi ay u sahashay in uu markaasi helo macaamiil runtii aad iyo aad u badan oo qolo walbaaba qoladooda markaasi ay la macaamilaan Holyland si kastaba haatee waxa markaasi uu sii fiday in uu adeego isagoo oo aan meesha kaliya lagu cunanay in markaasi aad ka soo dalbato banaanka laguna keeno haddii aad leedahay xaflad shir iyo waliba haddii aad leedahay barnaamij kale Holyland marka waxa uu haatan la tartamaya dukaamada waaweyn ee ku yaala gobolka Minnesota hadii Allah wadolana ogolaado waxa ay yiraahdeen waxaan higsanayna in dukaamada sida Cap Food-ka oo kale aanu markaasi furno oo ay ka adeegtaan dadka iyagu markaasi aanan u dhalan aan ku dhalan wadankan laakiin se iyagu ka yimid meel kale ee jecelna cunnadoodii in ay markaasi iyo dhaqankoodii ay isla haystaan si kastaba haatee kaliya ma aha in dadkaasi cunaan laakiin hadda marka aad aragto ama sawirada ama videoga waxa ka dhex muuqda dad ajnabi oo runtii xiisaynaya cunnada kala duwan haddaba Holyland waxa uu leeyahay haddii aad tahay Soomaali oo degan tahay gobolka Minnesota ama shaqo raadinaysid waxaanu leenahay gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada ayuu idin leeyahay ninka madaxda ka ah Holyland